bilowna Somaliland waxay tusaale guud ay u tahay dalalka Geeska Afrika balse ma aysan helin mudnaantii ay lahayd. Laba aqoonyahan oo caan ka ah dunida isla markaana wax ka qora dhammaan xaaladaha siyaasadeed ee dunida ka jirta ayaa soo bandhigay dadaalka weyn ee baaxadda leh ee Somaliland ku bixisay xalinta khilaafaadka. Somaliland waa gobol dheer oo ay ku hareeraysan yihiin khilaafyo siyaasadeed isqa qabsi u dhaxeeya dawladaha Geeska Afrika. Somaliland waxay u taagan tahay ilayska Geeska Afrika xasiloonida xogaha xagga dimuqraadiyadda ah oo si ballaaran ay ugu shaqeysay muddadii ay jirtay. Si ka duwan Soomaaliya oo daris la ah Somaliland madax banaanideeda halka dhinac waxay ku dhawaaqday Somaliland 1991 ma aysan helin wax yar oo ka mid ah kaalmooyinka caalamiga ah iyo taageerada meelaha dagaaladu ay ka socdaan sida caadiga ah. Beddelkeeda Somaliland waxa ay ku doodaysaa inaysan weli helin mudnaantii ay lahayd oo ay kaga fadhisay caalamka, taasi oo ahayd in ay hesho aqoonsi caalami ah oo ay xaq u leedahay maadaama ay tusaale u tahay horumarka ka jira guud ahaan dalalka Geeska Afrika. Dr. Sarah Phillips ayaa qaba in faragelin la'aanta dibadda waxa ay ka dhigan tahay in Somaliland awood u yeelatay inay soo bandhigto madadaalo hal abuur leh oo isku dhafan maamulka galbeedka iyo caadooyinka maxalliga ah. Somaliland waxa ay siisay tusaale dhif naadir ah dhisidda nabadda iyadoo caalamka aysan ku lug lahayn arrimaha siyaasadda gudahooda, ayuu yiri. Taxanayaasha Dr. Sarah Phillips iyo Reg Aydon waxaa ku weeliya sida ay u sahminayaan doorka dagaalka ah ee nabadda, xadidaadda jawaabaha caalamiga ah ee dhismaha nabadda iyo muhiimadda ay leedahay wada hadalka maxalliga ah oo ay Somaliland ku booriyeen. Dr. Phillips waa professor ku xeel dheer arrimaha amniga iyo horumarka caalamiga ah. Dr. waxa uu si aad ah uga faalooday horumarada iyo guulaha wax ku oolka ah ee ay Somaliland gaartay. Waxaana Dr. uu diiradda u saaraa isla markaana cilmi baaris ku sameeyaa si qoto dheer ah isla markaana uu soo qaata shaqada gudaha. Waxa uu si gaar ah diiradda u saaraa faragelinta caalamiga ah ee koonfurta adduunka, soo saarka aqoonta ah ee dalalka ay colaaduhu ay saameeyeen, dawlad dhisidda iyo maamul la'aanta, iyadoo diiradda juqraafi ahaan diiradda saaraya jasiiradaha Carabta iyo Geeska Afrika. Sarah waa qoraaga 3 buug waxaana si ballaaran loogu daabacay joornaalada tacliinta sare leh oo ay ku jiraan daraasaadka caalamiga ah. Halka Reg Aydon waxa uu ka soo shaqeeyay ciidanka Ingiriiska ee waqooyiga Ireland, Cumaan iyo Sierra Leone.